بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسن ضمان أصحابتا إنو جعلنا هاي وميل والبو آد دونيدا إيا دافعها عالمك آد كجوگتان يسي والبو مقال كينا قرحة بدن أو يدين سو غاري مانكو وحو رئيسة ورطا كسو دوادا يوتيوب كينا عصب آران ميديا هدي آتا يقف إنو عصب سبسكراب ده شير لاك هكا بقيلين مادام يهين أصحاب إذن عصب sidoo kale maanta waad garanaysaan waa 26 June waa 59 guuradii markii geeyga Soomaaliyeed ama dhanka waqooyi laga taagay calan Soomaali ee leedahay marka waa idinku hambalyeynaya sidoo kale asxaabta aad u jeedaan ee kale dabaaldega dhankooda ayay ka qaadanayaan marka hore aan horta ay sheegeen gudogal asxaabta maadaama aan rabo inay idinla wadaagaan magacyadooda hal ku soo dhaw okay walaalkii waa ku dhawahay magacaygu waa maxamed ismaan oo ay qaan shifa meel walba joogtaa Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambaliyaad hawada marnaysa saafila sidoo kale saaxiibkayga dhanka midiga jira sagan hadaan u jaleeco anigu magacayga Maxamuud Macalin Sheekh oo ku magac dheer Shire waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ee dunida ka joogto nabad iyo barwaaqo waa maalin aad noogu weyn waa maalin farxad mudan maadaama ay tahay 26 June waa maalintii ay qaadatay xornimada Soomaalida waqooyi waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogtaan nabad iyo barwaaqo Allah muskinka xiro wadankeena nabad Allah inooga dhigo barwaaqo Allah ina siiyo haatan waxaan ku wareejinayaa walaalkayga sidoo kale aan iskii baro magacaygu waa Umar Ismaaciil Cali Umar Caaqilka ayaa leedahay Aaran Media ayaa inaga daawan kartaa mar walbo hadii aad doonaysid inaad macluumaad fara badan iyo sidoo kale aad doonaysid in aad aduunka qaybihiisa kala duwan ama wax walba oo ku soo kordha inaad la socotid hadii aad rabtid please ku soo bir Aaran Media adigoo subscribe-ka iyo like iyo share-kaba intaba aadan ka baqayn waayahay barnaamijkeena aan gudagalno waxaa idin wadaa maanta barnaamij la yiraahdo layaab ama la yaabtay maxaa la yaabtay adiga ay daawanaya maxaa la yaabtay dhamaan ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waa maasan tahay waxa oraha hadii aad haysid ama fikir commentiga inoogu reeb anaga ayaa ku tixgelin doona ama maaragtay dadii kale aan la wadaagi doono hadoo iba karaale noqdo layaab barnaamij la yiraahdo ayaa maanta idin haya daawadayaal maanta baa asxaabta waan idin wada haynaa annaga oo weydiin doona qof waliba waxa uu la yaabay ama adduunka intuu joogo wixii uu la yaabka badnaa ee soo maray annaga weydiin doona haduu iba karaale noqdo barnaamijkana waad ku daawan doontaan insha Allah ta'ala adiga naftiga hadda daawanaya waxa aad la yaabtay waa ay jiraan wax mucjiso lagu tilmaamo waa ay jiraan balse marmarka qaar xishood ayaad maaragtay la yara gaabinaysa laakiin adiga intaan ku weydiin ka hor asxaabta aan la wadaago dhanka midiga ayaan ka bilaabaya saaxiibkayga qaaliga soo dhaw waan dhawahay marka hore waxaan leeyahay asxaabta dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu si fiican tan xigto horta waxyaabo badan oo lala yaabo adduunkan waa jira si fiican hadda yani ma kaaga sheekeeyaa waxyaabaha taariikhiga aniga xaggayga aan kala kulmay la yaabka maadaama layaabka oo iskugu jiro mid oo farxadeed iyo mid maaragtay muruga muujinaya labadaba maadaama uu iskugu jiro labadaba inaan ku weydiiyaa ma haboonta mise adiga waa mid yani waxaad weydiisaa midka adiga oo yani murugada aan ku jirin oo laakiin layaabka si fiican waayahay waxa kugu layaabka badnaa ee aad aragto inta aan nooleed ha ahaado dhaqan ha ahaado waxyaabo kale maxaa kugu layaabka badnaa waxa ugu layaabka badnaa dunida inta joogay sanadu markay ahayd 2011 si fiican magaalada gaar oo magaalada gobolka Nordistan Kenya wajah si fiican imaaday waxba aniga sharci waxaas baan ka raadinayay gabar baa isbaranay gabadhii waxay leedahay mar walbo cambiirta baa ka dhaxarkay cambiirtiya waxay wala yaabahay mar walbo wariya waxaan ku sheegaa ma garanayaa walaalkay waxaan ku sheegaa ma garanaysaa ilaah baan ku dhaartay aniga cambiirtan ka dhaxarkay mar walba marka cambiirta daawanayo cambiirta baan ka dhaxarkay
warniyo anigu waa yaabana war maxay tahay cambiirta la sheegayo oo laga adiga erayga cambiira kugu cusub erayga cambiira la yaabanayo ana haduu cusub yaaba ana haduu kula joog erayga haddaba cambiir haddaa idin sheego waa waxaa idinka aad la yaabi doontaan aad idinku taqaan cambiirta horta waxaa la yidhahdaa waa balooniga kubadda cagta la dheelo ee u yaqaaniin kubadda cagta oo aniga ayar ma cambiir u yaqaaniin markaa cambiirka daawanayo baa cambiirka kaa dhex arkaa reer xamarku ayagana waa iyo dadkaas kalaba iyo dadkaas nordhistanka dadka waqooyi bari degan waa isku jahwareeraya Soomaaliya marka aniga cambiirtii ala yaabana wiilan saaxiibanahay oo xamar isla joogi jirnay oo muddo aan isla joogno u imaaday waxaan dhahay warniyo muxuu yahay cambiir markaas ilaa sanaha soo idil waa yani bilooyin wiya ay ugu noqotay ayagu hadan waxaa unta intaas laakiin eraygaas waa keedinaysa waa keedinaha aniga waxaa la yaabanaha kale waxay leedahay markii qofku ku leeyahay aniga waa ku jecel oo kale markii qofku ku yiraahdo ayada waxay ku leedahay aniga waa ku jecel yahay waa ku jecel yahay ha ayaga Soomaaliya aniga waa ku jecel yahay ani ayada waa ku jecel yahay aniga ayada waa ku jecel yahay bawrta ka dhacdaa meeshaas qofka dawla camal waxaan maxay tahay Soomaaliya wallahi adiga wiil baa waxa sheekaysanayna muddo ku dhawaada 2 saac baa gabar walaashii u tago markaas uu yiri maxamuud maanta dhan waaba iska daldal maaye hadalkiisa alax kama fahmin aniga gabar walaashii u tago waxaan dhahay asiga naftirkiisa waa daldal maaye wuxuu sheegay waxba kama fahmin maanta dhan isku dhibanaday aniga waxaan ku sheegay garan waxaan leeyahay Soomaali meesha Soomaaliga waa meesha waxa isla leedahay dhulka baa lagu jiida isla leedahay Soomaaliga waa hadda lagu rarafto wallahi lagu rarafto waxa uu yaab ka bilaabay intaas ee cambiire cambiire daawada ada cambiir waa laga sii laakiin waa u qishta سبيع لكن أنا كلا بقعد دونا ذاك بدي حاول قدو صاحب كي قاسو سولويه واحد يقول لي يابك بدنا أردت أنت وقر كان كاسو بحاي أنت وقر كان كاتنا أنت صباحي واحد يقول لي يابك بدنا دارك تمحين horta dunida magaalada wax walba horta arkay oo aroojigiisa ما أنا والله والله كابا لكن هو إلا بيسا تاسع دباتي كده أنت horta aniga horta waxa ilo yaab badnaa sheeka aan maqlay laak aniga ma arag laak waa maqal kaliya waa maqashay tolo inay aad ku dhacdo fiican maya ilaahay ma ka saxay marka xasanadkii loo afritoon geed mar aan jaamacad diganay marka jaamacad diganay loo afritoon geed sifiican waxaan maqlay sabirada oo banaanka bulshada wareega oo meelaha laba nin isguursaday subhanaka ya cadi ani waariya waa dhaqan adduunyada ku cusub marka waxa la yaab cali cabdi goodal bedel waxa la yaab waxa leh dumar ina isguursaa macquul waay laakiin rag ina isguursanay hadda midka aroosa loo dhigo aroosa loo dhigo ninka diyaas baro waay والله بالله لو انا قلت اسكو ده هبينك الصبح في عمك بوزنا دياس بروي الصبح في عمك بوزنا مشو جوجا marka waxa sabirada wariga baraha bulshada arkay ninka la guursanayo ayuu sabsaanay cilaal asaan salaam subhanaka ya halkan waxaan ka salaameynaa inuu ilaahay caafimaad taam noo siiyo walaalkeen cabdi good oo xanuunsan inuu caafimaad taam Allah siiyo waa cabdi good ma arkine waa xanuunsan yahay niyo mar aan walaal waxaanu si caafimaad ninkaas nin ku dayasho mudan waa si fiican macalinkeenu dhaqanka Soomaaliyeed ninkaas ku dhinta naagti maara loo heli waayeen annaga hadda barnaamijka si keesoo ma keenin maxaa la yiraahdo falaq laayisda annaga taa ugu weyn oo fanaanada madaxa ina ka xirnaa dugsi geelina war kale ma annaga ana sabulo qaari alifka loo bilaabo ana saxabka su'aal weydiina aday ku maad aday maxaa ku yaab badnaa anaga boqol kuntan la yaaba magaalo soo arkay waxa la tahay ma mid macna mucjiso ku noqotay noo sheeg wala saxab mar walbo ajid maray gabar haday hor maato eedaa la yaab ku qaataa saal eedaa la yaab ku qaataa alag xasab hada xayta maalin walba hebel al aroos hebel nikaxeedii ayirus waxa la yaab marka mid saaxiibanaha marka wareysta warniyo qoftaan shukaasi dirnay oo saaxiibada ee waa aroosooda waayahay maxmed qoftaas inuu waa shirneed waa kala kacsaneed kala araga aheed ma qalbu qaatay علشان وحكى وضع الشك إن أنت ما قال لك بعشق وما ركض لعق ما قال لك
هاي markaasuu inantii ahaa hal dollar bar bajaajada cabisa baxday laa ilaaha markaasa waxaan niyadayga soo dhaxbartama ninkaas aan hadlahay markaas waxaa la yaab noqotay oo aan la yaabay gabdhihii Soomaaliyeed oo ragga ku diya ahaa jireen oo calaashaan ninka markuu dhinto 100 la bixi jiray iyo inanta marka la aroosa 100 la dhiibi jiray hal dollar bar bajaaj سبحانك سبحانك يا علي سبحانك يا نو كلو waxaan kala wallahi ila taqasam la fiirsagar wallahi tan waxa la yaabay waxaan ku sheega wallahi dollar bar lacag maan wallahi qiimana maan asluubna maan sharaf maan hadii aad xanaaqnid madaxa in laga xidhaa dugsiga